waxaa maanta magaalada Hargeysa si diiran loogu soo dhaweeyay Suldaan Kayse Bada Cabdille oo ka mid ah madaxda dhaqanka Soomaaliland. Suldaanka oo saaka ka soo ambabaxay deegaanka Abokor Axmed ee degmada Xarshin ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa markii uu soo gaaray caasimadda Hargeysa waxaa duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa si diiran ugu qaabilay siyaasiyiin cuqaal madax dhaqameed waxgarad odayaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasi oo soo galbiyay hotel Caydiid oo harima sharafeed loogu sameeyay suldaanka iyo waftiga uu hogaaminayay waxaana hadallo soo dhaweeyna ka jeediyay xildhibaano cuqaal waxgarad iyo aqoon-yahano. marka labaad waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa oo aanu ku soo dhaweynaynaa Suldaan Kayse Bada Cabdille. aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkiisa iyo aanu u soo dhaweynay iyo dadkuna waxaan ugu mahadnaqayaa sida ay u soo dhaweeyeen sharafta iyo qiimaha leh ee diiran ee magaalada Hargeysa loogu soo dhaweeyay dadweynaha soo dhaweeyay suldaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana. ducada waxaan leeyahay mas'uuliyad baad qaaday Suldaan Kayse Bada Cabdi waa xil culus Allah ku astro hambaliyada waxaan ku leeyahay hambaliyo gabagabadii madashaasi waxaa la mahadnaq iyo ducaba iskugu jira ka jeediyay Suldaan Kayse Bada Cabdille waxaan u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb gashay soo dhaweyntiisa. waxaan halkan aan aad uga hambaliyaynayaa aan ugu ducaynayaa dadkii soo caleema saaray iyo dadkii soo dhaweeyay iyo dadkii soo galbiyay amiin ilaahu warka madar khayr qaban naga sii amiin ilaahu mid miskiin kalkaal naga sii amiin shub ilaahay noo shub amiin ilaahu dadkayga bogooda burcad isu mari. Maxamed Ciiro Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.